waxaan hambalyo iyo ducaba horta u diraynaa ganacsatada maalgashiga ku sameeyay dalkoodii waliba waxa ay ka sameeyeen oo ay ka yagleeleen magaalo taariikh weyn ku leh Soomaaliland oo mudan in laga yagleelo dhismayaal casri ah oo ah halkii lagaga dhawaaqay jiritaanka Soomaaliland aad baan mar labaad uga hambalyanayaa in ay iyaguna ku dhiiradeen si gaar ah waan u soo dhaweynaynaa haddaan nahay shirkadda Softbooking waxay kala shaqeyn doontaa dhanka hotelka ama booking hotelka teknolojiyadda adduunku waxay maraysaa meel aad iyo aad cajiib u badan leh dhalinyarteena Soomaaliland inay ka faa'iideysato oo ay uga faa'iideeyaan dalkooda muhiim bay noo tahay haddii ay dhici jirtay in qofku marka uu socod gelayo ama uu socdaalayo gobol kale inuu yiraahdo intuu telefoon ku soo hadlo war hebel oo ii kira hotel ama uu dhib fara badan ka mudan jiray inuu helo oo daydayo maanta Softbooking baa idin joogta waxaad si fudud uga kiraysan karaysaa adigoo jooga gurigaaga xafiiskaaga iyo waliba magaalada aad ka soo socdaalayso si fudud hotelka aad doonayso inaad u hesho internet iyo internet la'aan labadaba oo aad arki karayso haddii aad internet isticmaalayso muuqaalkii guud ee hotelka qolalkii xataa sariirta degaysay nooca ahayd inaad si arki karto sidoo kale offline-ka waxaan u diyaarinay iyadana in call center-ka laga soo garaaco oo qofka dadka waayeelka ah aan internetka isticmaali garanayn iyaguna ay halka ay ka soo garaacaan oo bookingkooda looga gudbiyo isticmaalka adeegani waa lacag la'aan inuu hotelku nagu soo biiraana iyaduna waa lacag la'aan dhammaan bulshooyinka reer Soomaaliland waxaanu ka codsanaynaa maadaama aanu nahay dhalinyar fara badan oo hindisay ama fikirkan la yimi inay nagu taageeraan hadday socdaal galayaan adeeganina uu lacag la'aan yahay inay nagu dhiirigeliyaan inay booking sameeyaan oo ay bookingka shirkadda Softbooking soo dhex maraan si aan ula tartanno shirkadaha asaaga adduunka ka jira aad baad u masantiin dhammaantiin islaamka